Axmed Aadan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho marar badan ka qayb qaatay sidii dhalinyarada ugu wacyigelin lahaa khatarta taariibta ayaa siiskiya shaqo abuur ugu sameeyay mid ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waa kan Axmed Aadan oo ka hadlaya dareenkiisa. maanta waxaan ku faraxsanahay hadafkii aan lahayn oo aan ku ballanay aniga iyo Cabdirasaaq inaan gaarnay wax ka yar wiilkan dhalinyarada aan hawl ugu qabanay isagana oo nolol maalmeedkiisii uu ka soo saaranayo. marka alxamdulillah waa wax lagu farxo. saacado ka hor wuxuu ahaa qof aan waxba shaqaynayn laakiin maanta waxa uu yahay qof oo shaqo u bilaabatay cidiisa iyo nafsadiisa uu maareyn karo. marka haddii ummadda is caawiyaan wax badan waa la gaari karaa. soo marka alxamdulillah aan leenahay walaalkeena waxaan ku ballanay in asaga naftiisa uu sii caawiyo dadka kale oo asaga la mid ah. marka magaalada Muqdisho waxa jira dad kumanaan kun oo dhalinyaro oo shaqo la'aan ku hayso. marka insha Allah kuma eka Maxamed kaliya laakiin insha Allah waa sii badin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. saasan suubnaa Maxamed oo ah wiilka shaqo abuurka loo sameeyay ayaa isna dhankiisa ka hadlay sida uu warka shaqo abuurkani. shaqaalo marka taasay jirta ka waran hawshan Abdulaad maanta. hawshan maanta wallahi eed u farasan yahay walaalkay. صح marka waxa dareemay marka maya wallahi lama dareemay familkaaga cidaad wax muu soo mushqaysan kartid ya hooyo aaba cidaad soo wax muu samaysan kartid eed u samaysan karaa ma sha Allah ayaad shaqayso adigna waxa laga rabaa dadka kale naasiya caawisid sida anaga dirtaan wax lagu qabtay aniga yar kale saaxiibkay Cabdirasaaq Allah hawshan qayb ka marka waxa rabaa in dadka naasiya caawisid marka dadaal insha Allah ya insha Allah yabo insha Allah